yimi oo nabiga calayhi salatu wasalaam kadib xaaladda iyadu say noqon doonto waxay u soo galeen abubakar radia allahu canhu iyo cabaas radia allahu canhu waxay u soo galeen nebiga calayh salatu wasalaam arrintii ansaarta ayayna u sheegeen nebiga calayh salatu wasalaam nebigu alayh salatu salaam wuxuu yihi ikiciya oo ifariisiya labada garab baa laga galay nebiga calayh salaatu wasalaam mara yaro guduudan ayuu madaxa ku xirtay nebigu calayh salaatu wasalaam si uu madaxa xanuunkiisa ugu adkaysto wuuna soo baxay isaga oo ay garbaha kaga jiraan waxaa la keenay mimbarka ayuu fuulay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi faإna الnaasa yakhuruun wاlansaar wayaqilu اlansaar dadku way badanayaan buu yihi ansaartuna way yaraanaysaa xataa yakunuu fi الnaasi bimanzilaةi milixi min الطacaam ilaa ay noqdaan yaraanta say u yar yihiin dadka sida milixdu cuntada ay u tahay oo kale faman waliya minkum shay-an qofkiinii tala qabta ama meel uu dad wax ka tari karo ama wax ka yeelayn karo qabta ansaar wuxuu yihi falyaqbal min muxsinihim kooda muxsinkaana ha laga aqbalo si wanaagsan waytajaawaz can musii'ihim kooda wax xumaana sameeyana ha loo dhaafo wuxuu yihi uusiikum biاlansaar waxaan idin dardaarmaya ansaar fainahum karshii wa caybati waa calooshaydii waa sirtaydii buu yihi nebigu calayh الsalaatu wasalaam waqad qadow aladii calayhim wixii korkooda ahaa waa guteen yani wuxuu ka hadlayaa nebigu calayh الsalaatu wasalaam beycadii ay galeen beycat alcaqaba aلthaaniya ee 270 nin nebiga calayh الsalatu wasalaam ay beycada la galeen inay u nusraynayaan oo u gargaarayaan nebiga calayh الsalaatu wasalaam gurigooda kusoo dhoweynayaan deegaankooda kusoo dhoweynayaan caruurtooda iyo ehelkooda waxay ka difaacaan ay ka difaacayaan wax kalena aanay ku doonihayn janno waxaan ka ahayn wuxuu leeyahay marka way ka soo baxeen waajibkoodii iyo ballantoodii waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay ballantoodii iyagana u oofiyo waxaan idin dardaarmayaa inaad wanaajisaan ansaar kooda muxsinkaana ka aqbala kooda musiigaana cafiya oo waxba arrinkiisa ka soo qaadinina iyagana wuxuu ku yihi nebigu calayh الsalaatu wasalaam inta aanu geriyoon waxaad arki doontaan haratan ad arki doontaan iyo umuur arrimo aada ankirtaan oo aada la yaabtaan baad arki doontaan in laydinka exdaad arki doontaan isuga oo sabra xataa talqownii cala alxawd ilaa aad aniga berkadeydii ida webigayga igu timaadaan jannada waxba far aha dhaqaajinina buu yihi sabra ilaa aad ii timaadaan wixiina xoog ku raadsada muu ku dhihin maalintaas waxay ahayd bay yidhahdeen nebigu calayhi الsalaatu wasalaam maalintii ugu dambeysay oo mimbarka uu fuulo calayhi الsalaatu wasalaam markuu ka soo degayna mar dambe mimbarka ma fuulin nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waxaa jirtay markaa jimcadii iyo sabtigii iyo axaddii nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ma uu soo bixin salaada inta badan waxaa tujinayey abubakar baa tujinayey dadka waxaa kaloo dhacday maalintii u dambeysay markaynu u nimaadno ee isniinta ahayd nebiga calayhi الsalaatu wasalaam qandhadu aad bay ugu soo kordhaysay uguna soo siyaadaysay heer uu galay cabdullaahi bnu mascuud mar uu u galay oo uu yihi madaxiisa markuu taabtay rasuulkii allahu qandhadu aad iyo aad ayay ku haysaa buu yihi markaasuu yihi ajal laba nin oo idinka idinka mida siday u qandhoodaan baan u qandhoonayaa bui culayskeeda ay leedahay kadibna nebiga calayh الslat slaam xanuunkiisu uu isa soo taayey
ilaa maalintaa lasoo gaaro isniinta ah. maalinta ka horreysay subaxnimadii ayuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu ku yihi caaisha radia allahu canha, biyo ayaa loo keenay, biyahaasuu gacanta gelinayey, kadibna wuxuu ku masaxayay wejigiisa isagoo odhanaya laa ilaaha ila اllah ina lilmowti sakaraat. mowtku wuxuu leeyahay sakaraat buu leeyahay, xanuun badan buu leeyahay, isagoo leh nebigu calayhi الsalaatu wasalaam. subaxnimadii salaaddii subax iyagoo tukanaya ayuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam daaha guriga caaisha wuxuu ku dhow yahay, sidaan ognahay waa meesha nebigu calayhi الsalatu wasalaam uu ku aasan yahay hadda, mimbarkiisuna wuu ku dhowaaye mixraabka masjidku. marka daaha ayuu saa u fayday isagoo eegaya asxaabtii oo safan oo abubakar radia allahu canhu u tujinayo oo ay salaaddii ku jiraan. saa markuu u eegay ayay asxaabtii dareemeen in nebigu calayhi الsalaatu wasalaam u soo eegayo. waxay is yidhaahdeen rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wuu fiicnaaday oo wuu caafimaadayo waxaa dhici karta inuu salaada la soo galo, sida uu leeyahay anas kaaduu an yaftatinu, waxay ku sigteen inay salaadoodii ka fitnoobaan oy salaaddii ka baxaan oy eegaan xaggii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam. ama abubakar uu dib uga soo baxo mixraabka, markaasuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam isagoo u muusoonaya oo u dhoolla caddaynaya gacanta wuxuu uga ishaaray calaa rislikum, sidiina ha ahaada, salaadiinana tukada. ma ayan dareemayayn asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim inay tahay eegmadii ugu dambeysay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uu ku sogotini, ee markii ugu dambeysay adduunyadan ay ahayd oo uu eegayo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam, uuna ku faraxsanaa ummaddiisii diintii uu soo waday 23 sano, risaaladii uu soo waday iyadoo dowladdeedii ay dhisan tahay, dadkii ay rumeeyeen, waajibaadkoodii ay guteen, salaadiina kelimadoodii ku midaysan tahay, hal saf ay wada safan yihiin. abubakarna radia allahu canhu uu hogaaminayo oo salaada uu hogaaminayo, inuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam arrinkaas uu ku faraxsanaa ma ayan dareemahayn. kadibna daahi buu xiray, wuxuu ku noqday firaashkiisii caaisha radia allahu canha. caaisha markaa waxay ku tiirisay laabteeda nebiga calayhi الsalaatu wasalaam. inan yarna way ahayd oo aan khibrad badan lahayn. haddii aad rabto inaad ogaato, caaisha markaa 19 ama 18 ama 20 bay jirtay radia allahu canha. marka laabteeda ayuu ku dengigsaday nebigu calayhi الsalaatu wasalaam, oo waa tan odhanaysa caaisha radia allahu canha, ilaahay wuxuu fadli ii siiyey inuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uu ku geeriyoodo maalintaydii iyo gurigaygii, maalintii yani kaltanka anigu aanu lahaa dumarkiisa markuu wareego, maaha maalmihii u hibeeyeen, laakiin maalintaydii iyo gurigaygii iyo dhuuntayda iyo kalxamahayga laabtayda dhexdooda in naftu ay kaga baxdo nebiga